kala socota xanaha sheekada jacaylkii baasaboorka dahabshiil ka bilqaado xalqadiisa labaad waa qalinkii iyo tibintii cali kaamil ka daawo YouTube-ka Kaamil Show TikTok-ga Facebook-ga iyo Instagram-ka habeenka jimcaha soo galaya fadlan like-ta share-ta iyo subscribe-kaba waa dhankiina waa kaaf iyo kala dheeri muraayada riyada hadafka nololeed ay kala xidhan yihiin Aragsan iyo Amiir waxay isku jiraan masaafo u dhaxaysa cirka iyo dhulka inta isku jiraan waxa iska dhalay Aragsan aabba Ducaale iyo hooyo Degmo duruufta waxbarashada inantooda baahi tire intii waalid xaq loogu lahaa xaafad ahaan waxay degnaayeen Sheekh Madar oo ay guri jago ku leeyihiin waxay dhigataa dugsiga sare ee Gacan Libaax waxay shahaado kala duwan ka haysataa dugsiga Quraanka ku caanbaxay ee Aflax sidoo kale waxay shahaado IT ka haysataa college-ka Tisqaat waxay xirfado kala duwan ka baratay sida makeup-ka xinaha iyo decoration-ka college-ka Yole Skills sidoo kale waxay shahaado ka haysataa dhinaca editing-ka Casri College intaa waxa u dheer waxay seminaaro kala duwan u tagtaa khamiisaha iyo jimcaha MTC halka qoyska Amiir xaaladoodu tahay 50-50 cidna uma maqna ceelna uma qodna waxa iska dhalay Amiir aabba Aadan iyo hooyo Xaawo oo isugu darsamay da gabow iyo xanuun waxay ka galaan magaalada Hargeysa kolba guri kirow joog isha qura ay ku tiirsan yihiin waa adeerkiisa Warfaa oo jooga Dubai kaasoo u soo dira biilka bil kasta wuxuu dhigtaa Amiir dugsiga sare ee biyo dhacay iyo habeenkii uu galo jiimta Aragsan ma aaminsana nasiibka waxay ku kalsoon tahay dadaalka waxay u aragtaa furaha isbeddelka guusha mustaqbalka inay tahay midhaha aqoonta siduu aadmiga ugu mintido wixii tisqaada dadku tiigsadayo tacab iyo aqoonba inta loo tartamaya taa beddelkeeda Amiir wuxuu qabaa inay tahay waxbarashadu madal waqti lumisa iyo goob madadaalo loo tago si dalinta looga mashquuliyo jaarka qaar hore manfac ka waaye kuwa dambana masugsan yihiin mararka qaar wuxuu dilishadaa mahmaah isaga jeebkiisa ah oo u dhigan sidani waa maadiis waxbarashadu ardayduna way matalayaan Aragsan waxay saaxiib dhow la tahay qalinka iyo buugga waxay nacab u taqaanaa inta jahliga la rafiiq ah waxay role model u tahay inta anshaxa u aabba iyo hooyo ah waxay dhagaysataa inta xigmadaha u saaxiibka waxa u balwada wax akhriska iyo qoraalka marka damaca qayrka yahay dunidhan maare adna ma hadibu guur oo hankaaga duudu darajada wax ka xiga oon dadaalahayn sheeg Amiir wuxuu isku arkaa inuu yahay aabbihii jacaylka gabadhu hor joogsadana haye mooyee maya aan u quurin jawaab kale wuxuu u galay jiimta Bilkhayr Fitness Center juhdi adagna ku bixiyay si uu hablaha Oroba jooga xaqiisa u soo jilaaci lahaayeen wuxuu ku haystaa heesaha xigmadaha jacburka ee jiilka dambe la jaan qaadaan وكوذنا مدقنا أبدي عني إيا عدي وكوذنا مدقنا أبدي عني إيا عدي haddaan muraayad weynayso ku soo dhaweeyo araada kala duwan Aragsan iyo Amiir rajada Aragsan nolosha hadafkeeda wuxuu daaran yahay siday u noqon lahayd digtooreysa caafimaad buuxa dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda halka muraayad taa ka duwan uu ku eegayo rajada Amiir nolosha hadafkiisa ee uu ku naaloodo waa siduu gacanta ugu dhigi lahaa marun gabadh qurbaha joogta oo baasaboor USA ama UK sidata ado isku socdo gabar dhaxda dhab shamis qorta dhab kadib number daf qamis balan dhab balan guur u dhig kadib ugaar tag